qaarad barafleyda Antarctica waa mid ka mid ah labada cirif barafeed ee dhulka. Barafka ku dahaaran qaaradan waxa lagu qiyaasaa 90%, waana cuf barafeedka ugu weyn dunida. Haddaba haddii uu barafkaasi dhalaalid sameeyo, maxaa dhici kara? Antarctica waxay ku taallaa dacalka koonfureed ee dhulka, waana meesha ugu qabow dhulkan dushiisa. 90% qaaradda waxa ku dahaaran baraf aad u weyn, waxa ayna leedahay biyaha iyo dabaysha ugu nadiifsan dunida. NASA ayaa waxa ay cilmi baaris ka waday Antarctica muddo 40 sannadood ah. Riboodkii ugu dambeeyay ee ay soo saareen waxa ay ku sheegeen heerka baraf ee Antarctica inuu hoos u dhac ballaaran ku yimid uuna gaaray halkii ugu hooseysay muddo 40 sannadood ah. meelaha qaar waa Antarctica 100 mitir oo baraf ah ayay lumisay. Sidaa darteed, haddii barafka Antarctica uu dhalaalo, heerka badda waxa uu sare u kici doonaa ku dhawaad 60 mitir. magaalo xeebeedyada ku yaala dunida dacaladeeda waxa harqin doona daadad aad u xoogan oo dhanka badda kaga imaan doona. Sidoo kale, dad tiradoodii kor u dhaafi doonta 1 bilyan waxa ay noqon doonaan kuwa hoy la'aan ah. Waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ku cusub tahay channelka, fadlan nagu soo biir oo subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Haddii aad horey u saartayna, waan kaaga mahadcelinaynaa dhiirigelintaada. Mahadsanid.